السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدة الصوماليات والسلام يا ملك استجتان. أطبق الله فرق لك أن تقول سلام يا إنجليز أنتن كلام الحال وأن تقول سلام لها ويقول بتشوف بدين. حنقول الله يتميل فوق تكتاون سلام تجاري. نبتك على الناس فرنا فرين بعض الصدرية دمتي فرين نبضات فرين صدرية مد على نوع صدرية ما يوضل كني يرى ولا نجوها يستا أول بناء كلام قوسناي half how half half we have to half dadka sheego gaadhay marka inagu marka hore wasiir dadka madaxnimada hawada gaadho dadka kulaasta hawada gaadho reer walba wasiiro iyo madaxweyne iyo baarlamaan si uu helo meel yar ha samaysto oo wixii isku filaysan hadana maamulkii waliina gaadhi waayay ilaa dadka kuraasimo deeqda dadka nabad baa deeqda dawlad wanaag baa deeqa oo irsiqooda dhulka ay kala soo baxaan baa deeqa beel caalam wax laga soo dawariyay iyo wax laga dhigtay si ay beesha caalamku wax bixiyaan qolo walba ay wax uga hesho ay kursi madaxweynena u hesho ama gobol ha ahaado ama baashi ha ahaade ayaynu wixii isku filaysan oo way noo socdo inagoo iska wareersan oo inagii isla qaatay taagan ayaa nimankiina la yiraahdaa inoo yimaadeen waxay yiraahdeen nimayo dhulka iska soo wareejiyeen baalkan waa loo baahan yahay khayraad baa ku jira waxba ku jira wardaadu ku jira anigu noogu jiraa de waa anaguna la wadaagnaaba yiraa barnaamijka horta share garaya aad u share garaya waxaad samaysaan share barnaamijka kala daala markaad share garaysaan waxaad samaysaan barnaamijka oo share garaysaan hadii la yiraahdo ana maanta waxaan idinka sheekeynayaa sheekooyinkii xabxabiga ahaa insha Allah oo iga barateen ayaan 2 iyo 3 iyo 4 ba aan idinku tuuray intaan ka gaarsiin karo imika cid way si dhacaysa waa galabnimo waxaad samaysaan maanta waxaan idinka sheekeynayaa insha Allah dhowr sheeko oo xabxabiya laakiin barnaamijka si share garaya marka hore barnaamijka si share garaya maanta sheekadan waxay ku saabsan tahay sheekadii bakayluhu wuxuu ahaa sheeko dhan oo xabxabiya oo la yiraahdo sheekadii bakaylaha markaa bakaylaha bariba wax la yiraahdo walba meel deganeed ooshaasi meesha haday deganeed caaqil bay lahayd nin weyn oo odaya oo caaqila ayay lahaayeen ka bacdi caaqilkii wuxuu sameeyay laba beelood bay ahaayeen wada degan dabeetana labada beelood qola waxay leedahay ninka caaqilka qolana waa iska mooryaano laakiin saldanadiisa hoos tagaano way la degan marka qoladan caaqil kale ayaa waxay leeyihiin bakayla u jooga guriyaha xabad bakayla oo rabaayada ayaa u jooga marka reeru xoolo waa joogaan geelal baa jooga reeru waa dhaqan yihiin 4 maaladuun bay leeyihiin 6 maaladuun aduu wixii markaa la lahaa way leeyihiin bakaylaha maasnimooyin waxay ku filayeen bakayla yar baa u jooga qolada kale ee la degan iyagu bakayla male laakiin waa laba reer oo isku wada xukuumadda yar hoos tagay odaga caaqilka laakiin odaga caaqilka reer buu siiyahay oo labada reer ahaan reerahan bakaylaha la buu siiyahay dadna maalinkii dambe la yiri caaqil hebelow waxba dhacay maanta odag baa loo yimid caaqilka maxaa dhacay buu yiri wax la yiri waxa dhacay baa la yiri xaaji bakaylihii waa la tagay bakayleeni waa la tagay qoladii reer hebel aynu jaarka haynba bakaylihii qaatay oo wala dhacay bakaylihii niman baa loo soo dirsaday bakaylihii waa la baxay oo wala qaatay baa la yiri si bareer ah oo markaa de boob iyo tuugo oo kale isugu jirta ayaa bakayleeni loo tagay dadna abaal buu fikiro wax wareede rag hal la diro rag hal la hubayo bakaylihi la socod hadda waana bakayle man kana wax maqan waxa maqani inaad arwa bakayle tabadeeto ay murgi wala wada hadlo wax la yiri war bakayle anagu ciidan nimka ku saari maynay bakayle markii hore wax noo tarin kuwa qaatana aabtum baa la maagay waxba u gali maay marka هذا بكيله مدن كده سوء بكيله دونبو وهذا إنه اسمقله أمر لك قاضنا يا بكيله عيمك عيدنا هو صار يابي وحده ورا ده هذا يقول ملا عروس كاسة أول السيقود هذا الكيل اللي قمدين لقمنا يجين عندنا لا مدري بكيله سوس كم مقرأ مده هدي اللي تشوقي أيه وحيمي معلن كده بيوم با
caqalkii oo geedka iska jiifun baa mise dadkii baa barooranaya dumaradii iyo wixii rag midhadh guryaha joogay iyo waa la dhacay waa dagaal baa dhacay maxaa dhacay baa la yidhi wax la yidhi maanta geelashii baa lala tegey oo subaxii markii geelashii la sii daayey ayada galeen baa inamadii yaraa la joogay laanta lagu soo dhuftay geelina waa lala tegey marka hebel iyo hebelna way sigteen oo farxadkii bay madhablaayo galeen oo iminkii xaggaa ka soo qaylaroorkii naga soo gaadhay cidi kuma dhiman baa la yidhi laakiin geelashii nirig lagama tegey macal awrtii bay furfurteen oo yaa furtay wasal dee nimankii bakaylahana qaadan jiray reer hebele ama deriskaay lid male buu yidhi waa caadi weeye oo casarkii unbaa adigu waxu arkay raggii oo isurursanayo oo waxaan ku yidhi ninkii waran iyo meelkooga ninkii qoriyo ninkii faras haye iyo wixiiyo deedna dumarra hilib shiilaya iyo wax lagu duulimaad galo iyo alaabo arrimaha siyaa baa la yidhi markaasaa la yidhi dee waa la dhacay oo geeli baa laga daba tegaya ninkii ka daba tagaa buu yidhi durriyadayda maaha geelaa lama dooni kartaa wax dhibaatayna ma jiraan nin walba uu reerkaaga dhaqo amarkaan aniga ari waana habaaran yahay ninkii hawshaas ku doonta waryaa islaama ilaah yaqaan oo caaqil dee geeleenni baa maqan oo waanu caydh baynu nahay oo waxaan ku yidhi cayaaladii baa naaqdahayo oo aan dee neef ma joogo xeryaha ma soo yeen awr ma jiro adhihii baa looga tegey dabadeeto la yaabiyo laaf garan waayo maya buu yidhi ma dooni kartaa nin doonayaana ma jiro wax geeloo inaga madane ma jiro awalba calaf kumaynaan lahayn reerahaasa ilaahay u qoray halayna daaye waxba iyagana tari maayo inagana waxba inagalama maqleen dadkii baa yaabay war ma laha oo maxaase adigu la iska aaminsiyo dhawala kale amar qaadan jiray bergood dul foodo maayne sidii bay noqotay oo waa la iska joogayo maalinkii dambe ayaa maqribkii baa salaadii subax ayaa haddana reerihii la galay markay dumaradii kaakaceen in la siri dee daba kala shito ayaa col ku waabariistay reerihii dig oo haas dhaqaajin oo adyihiiba oo daloor laanka ka jiid reer walba macaa waxaraa ku furfur maqaqaqa muququ maqaqaqa waa raggii waramadooda wal kala jeestay nin walba isagoo goosha joogaa lagu qabtay wax ma dhaqaajin carshuqle adhigii baa waa beriga ceel guduudda la raacay waxar baan looga tegay subxaana horduduq dee maxaa soo hadhay meeshii maatadii iyo dumarkii oo maalinta hore awrtii loo dhaamin jiray iyo geelii ay maalayeen lala tegey maantana waxarihii macaa laga furfurtay oo adhigii laga daray silaanka laga rogay lo'diina lagu daray bal maxaa u soo hadhay dadkii oo qaxoonti oo aad moodaysid magaraysaa balbalooyin dee fadhiya oo cidlo fadhiya ayaa laga tegey raggiina waa tii amarta ay qabaan oo la yidhi dagaal ma qaadi kartaan maalinta hore geela la tegey duhurkii bay dayao gadoodsan isku yimaadana waxay idhahdeen war waxaan caaqilkala sheegay isagaba ma dilla horta ilaan xoroobi mayno cud iska celi mayno asaa geel la tartami mayno ilaa ninkaas intuu inoor fadhiya iyagoo diyaarsan bay u yimaadeenoo markaasaa la yidhi waan tegaynaa dee maantana soo ducay war jooga wiir maxaa doonaysa shalay dee saakana adhihii iyo lo'dii baa lala tegey marka ma dabeerahaan qalanna dabeedna wuxuu yidhi war waynu dhaqannahay oo waynu buuxnaaye ilaahay bilay nama sudhine qoladaa yarun baa ina dhibaataynayso dhaca iyo intaa yar mooyaane ool nabadu taal baynu nahay bele ma qabnee dhib intaa ka badan inaga joojiya dadkii baa istaaga wareedhe qofku waa u dhiman mise walba saasba dabeedna wuxuu yidhi maya buu yidhi qolada intay soo noqonayaan ay dumarrada iyo carruurta iyo waxaa naga kaxaysanayaan dagaalku ma kululaane nimayow aynuu kaadinno dumar iyo carruura oo maxaa kaxaysigooda markaa meel kaxaystaan baad rabtid maxaa noo hadhay dumarkii carruur dabeedna wuxuu waryaadhe war maalintii bakaylaha lala tegey baa idinku idhi bakaylihii ha lay keeno waa la soo celi ma la diid haa horta bakaylaha haddaad keeni lahaydeen oo markiiba la weerar la qaadi lahaa oo bakaylaheeni gacanteena soo geli lahaa dee rag cadkoodu bannaanka yaal bay noqon lahayn waxaasoo inaguma dhaceen xagbad baan hadalka uga jeedi maydaan se fahmine iminkana haddaydaan joogayn oo aad naagihiinna iyo carruurteenna u baqanaysaan in laydinku soo noqdo mid yeela ordoo taga waana idiin ducay duulimaadkana gala bakaylihii nimayoga keena dadkii baa is eegay war dadku ma caddaysan carruurkii iyo obadkii geelina hore oga maqnaa riyihii loo lisay wixiina waa lala tegey lo'diina waa lala tegey
reeruhu neef caduuma joogo oo weerarka bakaylaha laba weerar waaweyn ba ka dambeeyey xoolo lagu dhacay odaygii wuxuu ka soo bilaabay bakaylihii ii keenay buuri marka hore neefna ha weydiinina raggaa waad u tegaysaan weerar baad u kala jeedinaysaan waad haasaab garaynaysaan waxaad leedihiin ma isku dhammaynaa mise bakaylihii oo nool aan xarriiq qabin ayaad gacanta noo soo gelinaysaa dabadeeto bakaylaan xarriiqdiisa amaha qabaan bakayle ma doonin xoolama damay ma yidhaahda bakaylihii keena adigu de waxa kol xigmad uga jira waaye rag warweys maqli jiray sidii banu yaalaayo waa loo tego reeri baa sidii loo galo waxa la bakaylihii halkaas soo dhiga maanta bakaylihii mooyaane wax kaloo inoo bakaylihii nabad qabaad keenteen mooyee waa isku maran bakaylihii nabad qabay keeneen waa la keenay guriyii baa la keenay guriyii markii la keenay ayuu wuxuu yidhi haa haddaa reerku nabad yahay buu yidhi xoolaheennina hadda gacanteena soo galeen waxaad yeelaysaan orda oo iminka noqda haddaba reeri waad u tegaysaanoo hadday dee ragyaqaan yihiin waa isgaranaya waxay odhanayaan waa nimanka bakaylihii ka hadhi waaye geel iyo lo inooga hadhi maayaan iyo aniye nimanka xoolahoodan iska sii diyaarinno intaynaan isku aakhira seegin dabeedna xoolahoo diyaarun bay u tegaysaana ku noqday buuri dee waa la noqdo markii halkaa bidhaan laga arkay in baalayaa xoolahoodii naga diyaariya nimanka bakaylihii ku soo horreeyey wallahi inay wax kale inooga xadhi nooga tegayn hada xoolihii markati waa laga tirsaday oo madhan yihiin oo haayo xoolihii sidii markii ayaa laga soo xisaabsaday marka sheekada wax noga socdaa niman yookiin NFD bay hore oo la tagtay way ku barwaaqaysatay xabad lagama daba ridin habeen qof kagama dhiman dhulkaasi waxa weeye ilaa 600 kilomitir oo sidaasa iyo malaha in kale oo ka badan oo kun ku dhow oo dharara intaasoo bad oo nimcaa buu leeyahay intaasoo beriye buu leeyahay intaasoo malaayiina ku nool dhulkii intaa leeka aan malanayba inuu yahay dhulkaasi kun iyo kun ayaa aan qof kaga dhiman 60 sannadood gar way u leedahay way halkii bakaylaha mar haddaan bakayli ka doonan inay dhul kala soo doonato baddii markay soo doonatana qof kagama dhiman 10 sano iminka badday nugu haysid hal qof kagama dhiman nimayo inaga isu xoog weyn inaga sulaandheeraa inaga isu argagixisaa al-shabaabkeenu xataa meel kale ma aadee islaanta bakaaraha fadhida un budam ka siiya markaa iminkana hadday tiri Jubbaland baan leeyahay adeer wax weeyaan sheekada bakayliha laga soo bilaabo gaaris ha lagu wada hadlo insha Allah khayr baa idin rajaynaya gobolka waa naga dhacay waan salaamaya